isku soo noqod wanaagsan asxaabta sharafta leh halkan ku midownay waa mar kale iyo film cusub aynu wado inta muuqaalka aynan u gudagelin waxaan ka codsanayaa haday tahay markii kuugu horeysay fadlan nagu soo bir oo subscribe noo saar muuqaalkana like saar si asxaab kula mid aan u helno sheekada filmkan waa sidee bini'aadamku u noolaayeen 45,000 oo sano ka hor halkaas waxaana lagu barayaa koox ka kooban 6 qof oo qarniyadii dhexe ah inta kadib waxaana la tusayaa hogaamiyaha kooxdan oo lagu magacaabo Adam waxa uu leeyahay walaal lagu magacaabo Geer iyo wiil lagu magacaabo Hyron saddexdooduna waxay ahaayeen dad aad isugu dhow xubinta ugu da'da weyn kooxdan waa nin lagu magacaabo Odal waxa sidoo kale kooxdan kamid ah gabadh uur leh oo lagu magacaabo Eve oo sidoo kale ah lamaanaha Adam ugu dambeyntii xubinta ugu da'da yar waa gabar la yiraahdo Beya waxay sidoo kale ku soo biirtay kooxdan dhawaan markii hore si wanaagsan ayay loo dhaqmaayeen waxayna siinayeen cunto laakiin hadda waxay u sheegeen inay qabato shaqada ugu badan oo ah inay wixii ku noolaan lahaayeen keento midka kaliya ee kooxdan u roon gabadhan waa Keer laga yaabay inuu jecel yahay oo jecel u qabo iyada hadda kooxdu waxay ku jirtaa xaalad aad u adag maadaama aysan maalmo wax cunin tani waxay ka dhigtay kuwa aad u daciif ah gaar ahaan Eve oo ku jirta bishii 7 uurkeeda isla markii ay qoraxdu soo baxdo subaxdii waxay xirxirteen alaabtoodii oo ay u anbabixeen safar intii ay jidka ku sii jireen Adam wuxuu farta ku fiiqayaa buuro masaafo ahaan ka fog wuxuuna u sheegayaa inay halka aadayaan wuxuu u sharaxayaa in buurahaas ay leeyihiin godad badan halkaas ay ka hoyan karaan waxa kale oo ay ka helayaan xayawaano badan oo ay ugaarsadaan lagama maarmaanka u ah nolosha isagoo ka dhigaya meeshaas janno yar muddo kadib Adam iyo walaalkii Keer waxay ka hareen kooxda si ay u ugaarsi tagaan waxay isla markiiba la kulmeen bakhti weyn meesha yaala si kastaba ha ahaatee noolahaas oo u eg maroodi weyn oo la cunay waxaana kaliya oo laga tagay lafihiisa iyo haragiisa tani waxay cabsi gelisay walaalahan markay ogaadeen in xitaa wax ka wan maroodiga uu wareegayo duurkan intaas kadib markii ay ka soo tageen goobtii oo ay ku soo laabteen kooxdii waxay sii wateen safarkoodii waxay soo gaareen meel kayn ballaaran ka muuqato Geer oo ah walaalka Adam wuxuu soo jeeday inay qaadaan dariiqa keenta dhex maraysa si waqti badan aysan uga lumin socodka badan ay soconayaan waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in halkaas ay ka heli karaan xayawaano badan ay ugaarsadaan si kastaba ahaatee Adam si adag ayuu u diiday fikirka walaalkiis isagoo leh keenta waa khatar waxa uu huba wax kasta oo dilay maroodiga inay halka ku jiri karaan habeenkaas wiilashii walaalaha ah waxay ku heshiiyeen oo go'aansadeen inaysan u sheegin maroodiga weynaa ee la cunay si aysan argagax ugu kicin kooxda inteeda kale waxay shiteen dab waxayna u hoydeen banaanka duurka wax yar kadib kooxda waxay maqashay dhawaaqyo cabsi leh Adam iyo Keer isla markiiba waxay u qaateen inuu yahay ugaarsadihii cunay maroodiga weynaa waxayna qabsadeen hubkooda laakiin xogaa yar kadib si lama filaan ah waxa la xaday wiilkii yaraa ee lagu magacaabayo Hyron ee uu dhalay Adam ayaa isku dayay inuu ka daba tago oo soo badbaadiyo wiilkiisa laakiin asxaabtii kale ayaa joojiyay ayagoo leh aad bay khatar u tahay hadda ha ka daba tagin maadaama habeen ay tahay inay Hyron raadin doonaan subaxdii marka ay qoraxdu soo baxdo muuqaalka xiga qoraxdu way soo baxday oo waagu waa bariyay kooxdu waxay u dhaqaaqday baadigoobka Hyron oo xalay laga xaday maadaama Adam uu yahay ugaarsade khibrad leh waxa uu raacayaa raadadka xayawaanka wuxuuna isla markiiba la kulmay dharkii Hyron wuxuu ka dhaxlay dareere madow oo degdeg leh laakiin aanan lahayn dhiig tani waxay ka dhigaysaa inuu ku rajo weyn yahay in wiilkiisu weli nool yahay kooxdu waxay sii wadaa dabagalka raadkii xayawaanka ilaa ay ka soo gaadheen cidhifka keynta ay ka bilaabanayso isaga oo u maleynaya in wiilkiisa gudaha keynta loo kaxaystay Adam si lama filaan ah ayuu keynta u galay iyadoo asxaabta kale ay la socdaan muddo ka bacdi waxay soo gaadheen meel xayawaano badan waqtigooda yaalaan iyo lafahooda intaa kadib ayagoo goobta ku sugan waxay maqlayaan xayawaan ku qeylinaya meel u dhow iyagoo cabsanaya kooxdu waxay u sii carareen gudaha keynta ilaa ay si buuxda ugu dhex lumeen keynta hadda goobtu aad bay u madoobaatay waxayna noqotay habeen waxay go'aansadeen inay dab shitaan oo halka degaan oo fariistaan kala ku naxan xayawaankii ay ilaa haddeer garan la'yihiin wuxuu yahay mar allaale markuu u soo dhawaaday codka xayawaanka Adam wuxuu warankiisa u tuuray dhinaca codka uu ka imaanayo laakiin kuma dhicin bartilmaameedkiisa xaaladda oo aad u xun Adam wuxuu go'aansaday inuu si geesinimo leh uga hortago xayawaanka kaligiis wuxuu og yahay in hogaamiye ahaan ay tahay inuu hadda wax ka qabto hadii kale kooxdiisa oo dhami ay khatar gali doonaan nasiib daro tan waxay isu bedeshay
khalad aad u xun. isla mar ahaantana Aadam waxaa gadaal ka soo weeraray xayawaankii halkaa ku dilay. qayladiisi waxaa maqalay kooxda inteeda kale, laakiin aad bay uga baqayaan mana caawin karaan isaga. markii ay qayladiisii ay ugu dambeyntii dhamaatay, Geir ayaa dhankiisa u soo cararay oo raadiyay walaalkii si uu ugu soo celiyo dabka agtiisa raqdiisa. wuxuuna Geir soo helay walaalkii oo weli nafta ku jirto, wuxuuna keenay halka ay kooxdu joogtay. isla markaa kooxdu inteeda kale ay aragtay wejigiisa, waxa ay garteen in aanu sii noolaan doonin Aadam. Beya ayaa markaas toorey ay wadatay ku dhufatay Aadam si nafta uu ku silicsan yahay uga baxdo hal mar, halkaas ayuuna toos ugu dhintay Aadam. dhacdadan kadib kooxda gabi ahaanba waxay weydiyeen hoggaankoodii iyo ninkii ugu kartida badnaa sidoo kalena ahaa dhul yaqaankoodii. hadda kooxda waxaa la soo diristay gaajo iyo macluul haysta awgeed, maadaama ay waxay cunaan ugu dambeysay muddo. Beya waxay soo jeedisay inuu cunaan hilibka Aadam meedkiisa. kooxda inteeda kale maadaama aanay haysan doorashooyin kale waxay ogolaadeen taladii ay soo jeedisay Beya. kadib Beya waxay u dhaqaaqday inay jarjarto jirka Aadam meedkiisa, wayna karsanayaan ka hor inta aysan cunin. kan kaliya ee aanan qaadan fikirka ah in hilibka Aadam la cuno waa walaalkiis Geir, kaasoo aan cunin hilibka walaalkii. markay qoraxdu soo baxday subaxii xigay, Geir ayaa hoggaanka kooxda la wareegay isagoo u ballan qaaday inuu ka saari doono keynta. si kastaba ha ahaatee, saacado socod ah kadib waxay weli joogaan isla goobtii waasadaha oo keyntan ah. Oodal ayaa marka la yimid aragtidiisa waxa uu rumaysan yahay in xayawaanku uu ugaarsanayo ayaga, sababtoo ah inay ku sugan yihiin keyntiisa oo ah keynta ay ku jiraan. markaas asxaabta kale waxay weydiiyeen inuu hayo xal iyo in kale. Oodal wuxuu yidhi waa inaan qof bahalka siinaa oo ka tanaasulnaa oo annaga naga mid ah si aan isaga u mashquulino bahalka oo aan goobtan uga baxno. tani waxay keentay in qof walba uu eego Beya maadaama ay tahay qofta kaliya dabadda ka ah kooxdan. intaa kadib waxay isugu tageen Beya oo saddexda gees ka qabteen, waxayna isku dayeen inay u qabtaan bahalka, laakiinse Beya waxay laaday Geir taasoo keentay inuu madaxa ku dhufsado dhulka oo halka uu ku sooxo. laakiin labadii kale ee soo hartay Eef iyo Oodal waxay weli hayaan gabadha, bahalka ayayna ugu yeerayaan. laakiinse ugu dambeyn bahalka ayaa goobtaas yimi isagoo soo raacaya qeyladooda. odaygii Oodal ahaa aad ayuu uga baqay, isla goobta ayuuna ku barafoobay. Beya ayaa fursad ay ku baxsan karto heshay, halkaas ayayna ka baxsatay. hadda waxaa isugu soo haray Oodal iyo Eef, waxay qabsadeen hubkooda waxayna isu diyaariyeen inay si wada jir ah u wajahaan bahalka oo ay iska difaacaan. laakiin ilbiriqsiga ugu dambeeyay, Oodal ayaa gadaal ka soo maray Eef isagoo mindi ka gelinaya dhabarka dambe. Oodal ayaa markaa ku qeylinaya qaado si istaba joog ah, laakiin Eef isma aysan dhiibin. waxay isticmaashay tabarteedii ugu dambeysay, waxayna lugta u bixisay odaygii tooreyada geliyay, taasoo keentay inuu lugta ka jabo. hadda labadooduba aad bay u dhaawacmeen oo isma difaaci karaan. intaas kadib Geir ayaa ugu dambeyntii soo miyirsaday, wuxuuna raadin u galay asxaabtiisii, laakiin ceeryaamo jirta awgeed umaysan suurtagelin inuu wax badan arko. ugu dambeyntii wuxuu arkay odaygii u weynaa asxaabta oo dhulka jiifa, laakiin inta uusan odayga u tagin Beya ayaa dhulka ku tuurtay Geir, waxaana goobtaas yimi bahalkii laaya asxaabtii kale, wuxuuna soo dul istaagay odayga. laakiinse odaygii naxdinta uu ka naxay bahalka baa sababtay inuu naxdintii u dhinto. dhanka kale Beya waxay go'aansatay inay ka hortagto bahalka, waxayna u foorisay bahalka, waxay kaga carartay Geir, waxaana wiilkii xaggiisa soo aaday bahalkii. markuu u soo dhawaaday Geir, Beya ayaa gadaal ka soo weerartay, waxayna gadaal ka gelisay warankii ay wadatay. kadib waxay ka saartay maaskaro oo gashanaa bahalku, waxaana halkaas ku ogaanaynaa inuusan ahayn bahal laakiinse yahay bini aadam wax u eeg. runtii waa noole ay dadku u yaqaanaan Homo sapiens, yacni waxay ku misaalaan bini aadamku siduu ahaan jiray qaabkiisa hore, waxaana ay ugu yeeraan gaaladu in dadka hadeer ay kasoo farcameen oo ay ahaan jireen Homo sapiens. intaas kadib cabaar bay isdheegagayeen noolihii iyo Beya, aanba ugu yeerno noolahan daayeer naag ah. naagtii bahalka ahayd halkaas ayay ka carartay si ay u baxsato, laakiinse labadii qof ee kale way dabagaleen. laakiin aakhirkii naagtii daanyarada camal u ekeyd meeshaas ayay ka baxsatay. muuqaalka xiga Geir iyo Beya waxay ku murmayaan
waxay xiga ay sameyn lahaayeen, laakiin Gear wuxuu soo jeedinayaa inay ku noqdaan meeshii ay ka yimaadeen oo ay iska dayaan inay noolahaas ka daba tagaan. Si kastaba ha ahaatee, Bea waxay rabtaa inay daba gasho noolahan Homo sapienska ah. Waxay aaminsan tahay in bini'aadamka ay aad uga horumarsan yihiin, sidaa darteed waxay u baahan tahay inay wax badan ka soo ogaato. Gear waxa uu maleynayaa inay tahay talaabo halis ah, laakiin Bea waxay cadeysay inay gaajo u dhiman doonaan haddii ay laabtaan. Si kastaba ha ahaatee, in ay dhintaan ayagoo isku dayaya bahalkaas siday ku soo qaban lahaayeen. Intaa kadib, Gear wuu ku qancay hadalka Bea. Waxay bilaabeen inay raad raacaan naagtii Homo sapienska ahayd. Kadib markii ay saacado dhex mareen buuro dhaadheer iyo webiyo khatar ah, waxay yimaadeen meel ay dhowr god ku yaalaan. Intaa kadib, labadoodii way isqaybiyeen, balse isla markii ay Bea soo gashay mid ka mid ah godadka, waxaa soo weeraray nin Homo sapien ah, wuxuuna dhigay dhulka isagoo markaa bilaabay inuu ceejiyo. Intaa kadib, Bea waxa ka tagtay awoodii, waxayna u ekeed in naftu ka baxday, laakiinse waxay ka wadatay khiyaamo. Waxa qaylada Bea maqlay Gear, wuxuuna soo aaday dhankaas iyo Bea. Isla markii uu bahalka ninka u ahaa u maleeyay inay dhimatay, wuxuu sii daayay dhuunteeda. Intaa kadib, waxay Bea ku dhufatay walax af leh oo ay dhuunta ka gelisay. Ugu dambeynna waxay u dishay si naxariis darro ah. Intaa kadib, Bea waxay gudaha u sii gashay godka iyadoo baaris ah ilaa ay ka soo gaartay goob uu dab ka shidan yahay, laakiinse si lama filaan ah waxay goobta ku aragtay Chiron oo ka mid ah yaraankii kooxda oo halkaas ku sugan. Naagtii bahalka camal ahayd ayaana goobtaas timi iyadoo gacanta ku haysata hub. Bea iyadana waxay qabsatay qori dab leh oo goobtaas yaalay. Gear oo dhankooda u soo socday marka uu soo gaaray goobtan, wuxuu ku naxay wiilka uu adeerka u yahay oo nool. Naxdintiisa waxay ka faa'iideysatay naagtii, waxayna wiilka ku dishay halkaas iyadoo madaxa ka garaacaysa ilaa ay naftu ka baxday. Intaas kadib, Bea waxay dab qabatisay hargihii godka ku jiray, waxayna la baxsatay Chiron, waxayna ka soo baxeen meel ciriiri ahayd ilaa ay banaanka uga soo wada baxeen goobtaas. Godkii oo dhammi waa gubtay ilaa naagtii iyadana ay isku dayday inay ka soo baxdo godkaas, laakiinse way ka soo bixi kari weyday. Aad ayay godka afkiisa uga weyneed. Chiron wuxuu isku dayay inuu caawiyo oo ka soo saaro godka, laakiinse Bea ma aysan iloobin waxa naagtu ay ku samaysay kooxdeeda. Sidaa darteed, waxay qabsatay dhagax oo ay ku dishay naagtii. Chiron aad ayuu uga xumaaday waxa hadda dhacay, maadaama ay naagtu u naxariisan jirtay si wanaagsanna u xanaanaysan jirtay. Laakiinse markii Bea ay u sheegtay inay dishay aabihii, ugu dambeyntii wuu isdejiyay Chiron. Muuqaalka ugu dambeeya, labadoodu waxay galeen gudaha qayb kale oo ka mid ah godadka, halkaas oo ay ka heleen sawirro badan oo gidaarada ku yaal, cunto aad u badan iyo qalab kale oo casri ah. Filimka wuxuu ku soo dhamaanayaa halkaas. Haddaa ilaa dhammaadkeena la soo gaartay, fadlan ha ilaawin inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana aad like noo saarto. Mahadsanid.